magacayga waxaa la dhahaa Cabdulqaadir Abikar, Prof Cabdulqaadir Abikar Hussein, jaamacadda Almas University oo itijaaheeda inta badan waxyaabaha jiyooga ah dhulka ah khusaysa ayaa maaragtay jaamacaddaasaan ka tirsanahay. Marka waxaan rabay wax su'aalo tiro badan ayaamahan shacabka Soomaaliyeed waxay ku bateen in macdamo iyo waxaas ay raadiyaan. Marka fikradda guud oo degdeg ah inaan ka bixiyo ayaan jeclaan lahaa macaadinta. Waa maxay macdan marka ugu horeyso? macdan waxaa la dhahaa waxyaabo chemical formula leh oo ama dhagax noqon kara kaligood ama dhagaxda ku dhex jiri kara. Marka waa curiyaal kaligood istaagi kara oo chemical formula gooni leh ama maaragtay dhagaxa ku dhex jira. Marka su'aasha kale ku xigta waxay noqonaysaa haddii macdantii ay sidaas tahay macdanta waa maxay marka nooca ugu horeeya macaadinta waxay kala baxdaa macaadin looga faa'iideysto dhinaca warshadeynta, macaadin looga faa'iideysto oo dhinaca adkaha iyo warshadeynta, macaadin looga faa'iideysto dhinaca quruxda, macaadin looga faa'iideysto dhinaca tamarta. macaadintu waa kala duwan tahay. Marka haddii aan ku soo hormaro macaadinta dhinaca warshadeynta looga faa'iideysto waa kuwii ayaga waxa aan aragno birta ka soo qaad tusaale waa bir macdan ayay ku dhex jirtaa oo inta badan waa iron oxide waxyaabo noocaas oo kale ah, waxayna ku dhex jirtaa dhagax hematite iyo lignite iyo waxaas u badan. Marka ha ahaatee markii la rabo birta in loola soo baxo warshadeyn ayaa imaanayso in la warshadeeyo oo dhagaxii marka hore la soo qaado la jijibiyo la budeeyo ka bacdi chemical formula chemical maaragtay processing la dhexgeliyo oo lagala baxo birtii la rabay ama maartii la rabay lagala baxo ama uraniumtii la rabay lagala baxo oo inta badan biraha ah. Marka waxa aan aragnaa adduunyada marka laga hadlayo weelasha waxa laga sameeyaa aluminiumka, bauxite waxaas oo waa macdan, laakiin macdanta marka heshay dhagaxay ku jirtaa dhagaxii ayaa process gareyn u baahan warshadeyn u baahan. macaadinta marka noocaas waa jirtaa. macaadin kale oo waxaa jirto looga faa'iideysan karo ayaga dhinaca dhismaha ayaa looga faa'iideysan karaa. dhagxaanay galaya dhagaxii marble camal noqon kara waa la jaranaa dhismo iyo waxaasaa lagu sameynaa waxaa jaaya laga sameynaa waa la shiida waa la yaryareynaa la weyneynayo ayuu kuskuusan markaasaa jaagii lagu daraa laamigii lagu daraa. dhinacaasna waa dhinac kaloo macaadinta looga faa'iideysanayo. macaadinta kaloo laga faa'iideysanayo waxa waaye waxa Soomaalida hadda ay aad ugu baraarugeen gemstone-ka macaadinta oo suuqa micnaha ku leh. kuwaas inta badan qurux ayay leeyihiin marka la arko ayaa waxay leeyihiin qurux dadka soo jiidanayso. quruxaas soo jiidanaysa marka inta badan ama waa buluug zaa'id ah ama waa green zaa'id ah oo transparent ah aan lahaynin mataqaanaa jeexjeexniino gudahooda inclusion iyo waxba aan lahaynin. noocyadaas waa yar yihiin. waxaa ka mid ah emeraldka, waxaa ka mid ah mataqaanaa safiirka, waxaa ka mid ah rubiga. Soomaalida badankeed hadda ayaamahan duurkiyaa la wada galay. waxaad moodaa in macdamaysigii loo dareera ayaa umalaynaysaa. marka macdamaysiga ha loo dareere dhagxaanta la raadinayo oo gemstone-ka ah oo qaaliga ah ee dunida la isku qurxiyo waa kuwa hadda aan idiin sheegahay. haddii kuwaas laga gudbo waxaa jirto macaadinta dhinaca tamarta ah ayaa jirto. tamarta waa maxay marka? kuwa tamarta waxaa lagu jeedaa dhuxul dhagax oo kale. hadda waddankeena geedo badan ayaa la jaraa si dhuxul loo sameeyo. ma heli karnaa dhuxul dhagax meel ku jirto oo at least noo bedesho dhuxusha iyo geed jaridda iyo waxaas? dhuxul dhagax fiicana meelo badan aan ku leenahay. dhuxul dhagaxyadaas oo kale waxa waa coal ayaa la dhahaa waa lala soo baxaa iyadoo xoogaa dhinaca geedaha xigtaa jirta oo lignite la dhaho iyadoo dhexdhexaad aan coalnimo soo gaarin oo anthracite la dhahaa ayaa jirto. dhagaxdaas waxaa laga samayn karaa xagga tamarta ayaa laga samayn karaa. tamarta waa shidin ayagana waa la shidin karaa si direct ah. warshadaha soo saara korontadana waxaa korontada ayaa lagu dhalinaya waa loo isticmaalaa. Germany 25% tamarteeda waxay ka faa'iideysataa lignite waa nooc ka mid ah coal. marka anaga China warshadihiisa tamarta badankooda waxay ku beesgaraysiin dhuxul dhagax. marka waa samaysan karnaa anaga nafteena hadda magaalada Boosaaso kale meel u dhow waxaa laga helaa dhuxul dhagaxaas oo kale waa laga faa'iideyn karaa. marka dhuxul dhagaxa lignite-ka waxaa kaloo jirta uranium waxay soo galaysaa kuwii warshadeynta processing-ka u baahnaa, laakiin waxa waaye uranium-ta caadiga iyadoo carnotite la dhahay dhagaxda ku dhex jirtaa inta badan galmudug iyo gobolada kale oo uranium-ta primary-ga ay taalo. marka
ان uranium waxa la sameyn karaa dhagaxya la soo jijibinaa waa la shiidaa waa la process gareynaa waxa la suubinaa waxa laga soo saaraa wax la dhaho yellow cake ان yellow cake waa nooc midab jaalo ah leh oo uranium ah laakiin enriched ma aha wixii dhibka badnaa ma aha waa markii la soo baxo ka baxdi ayaa la gadayaa wadamada adduunyada waxa laga gadaa ayagaas hadhow dambe sameysanayo process loo yaqaan enrichment centrifuges waxay sameeyaan uranium 238 ayaa laga bedelaa uranium 235 ayaa laga dhigaa markaas tamarta nuclear-ki waxa loo adeegsanaa ama nabad ha loo adeegsado ama dagaal ha loo adeegsado uranium tamarka sidaas ay noqonaysaa marka uranium waa tamar waa maaragtay macdan tamareed en macaadinta noocyadoodii waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qaar tamarta loo adeegsanayo qaar bir ahaan loo adeegsanayo birta laga la soo baxayo metalada sida aluminumka ironka waxa laga la soo baxay waa soo iyo qaar kale oo loo adeegsanayo xagga qurxinta marka hadba qaabka anaga aragno waxa kale oo akhiran ku jiro diamondka oo asagana nooc kale ah en waa carbon laakiin meel fog adduunyo dhulka hoostiisa oo ka imaana volcano waxa soo qaaday kor u iman kara marka carbonkaas ayaa asagana wuxuu isu bedelaa diamond markuu hoos jiro pressure ka badan iyo temperature ka badan awgiis diamondka waxa hadana waxa sii weheliya en meelaha qaar dahab magma sidiisa kulul oo dahab ah ayaa oo dahab wata ayaa soo dhawaanay dhulka inta kore imaanaya marka kaasoo kale waa soo dhaqaaqa biyaha kulul iyo waxa soo qaadayo meelaha volcanicada kor imaanaya marka waa laga faa'iideysan karaa asagada marka dahabka macdanta en macaadinta noocyada kale ee warshadeynta ah macaadinta isku qurxinta ah en macaadinta birta ah macdamaha waa waxaas annaga hadda bini aadamka hadlayno ilkaheena iyo waxa kulli waxay ka samaysan yihiin calcium carbonate calcium ayay ka samaysan yihiin lafteena hadda waxaana noo soo tagalinayo inaan taagnaano laftaas nagu jirto laftana waa macaadin bini aadamku waxa cuno macaadin tira badan oo ka helaya marka macaadinta marka soo gaabiyo waa wax dhagaxa ku dhex jira ee chemical formula gooni ah oo faa'iidadaasna leh macaadinta qayb kale ayaa jirto oo cusbooyinka ah cusbada anaga Soomaaliya hadaan waxa nagu soo dhacdo cusbada horta waa macdin nooc kamid ah waxaana nagu soo dhacdo cusbada cuntada lagu darso sodium chloride loo yaqaan laakiin cusbooyinka intaas waa ka badan yihiin cusbooyin waxa jiro oo sida hadda cusbada caadiga la socoto dhulalka cusbada ay taalo sida hadda xiinlabi oo kale seego kale meelaha badan oo maaragtay galmudug ah ama gada ah ama Soomaaliya qaybaheeda kala ah cusbooyinka waa yaalaan marka cusbooyinka waxa ku dhex jira potassium chloride oo fertilizer ah oo beeraha lagu sameeysan karo hadii la process gareeyo cusbada laga la soo dhex bixi karo waxa jirto cusba nooc kale oo lithium loo yaqaan lithium carbonate waxa waaye bateriyaasha adduunyada hadda baabuurtan tirada badan waaba hadda wax dahabka ka qaalisan waa lithium ka daasi u fiirisay maxaa dhacay demand aad baahi aad u badan ayaa dunida ka jirta baabuurta inay ka wareegaan baabuur petrol iyo diesel waxa ay ku shaqeynayaan ay u wareegaan baabuur battery ku shaqeynaya oo koronto ah si taas ay u dhacdo marka si taas ay u dhacdo lithiumki ayaa la soo baxay lithiumki xaguu ku jira lithium carbonate asagoo ah oo macdan ah ayaa cusbooyinka ku dhex jira cusbooyinka xagee yeelaan gobollo badan Soomaaliya ay banaanka yeelaan ayagoo dhagax amal ah ayay yeelaan marka galmudug dhexda hadaa fiirisid meelo badan ayaa cusbada noocaas ay taala gedo waan ku maqlaayay meelo kale oo maaragtay kala duwan ee Soomaaliya kamid ah ayaa salt panis iyo cusbo dhagaxeed ay taala